صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ملك استوء شوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني داودا صونكا حلقدني ومدي تبنات waxaan ku qaadaa dhigi doonaa biidni illaahi almawlaa jalla fii culaah laylatul qadri, habeenkii qiimaha badnaa ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa. waa marbatul faras iyo baytul qasiid iyo meeshii loo socday. waa habeen ka khayr badan kun bilood habeen ka khayr badan weeye. waa habeen aad iyo aad u khayr badan. habeenkaas ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa xalqadeennan, lagana yaabay inay xalqada 11aadna isla isaga un ay noqoto. ayuha alaxibatu fi llah, rabbi subxaanahu caza wajal laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun. isaga waxba lama weydiiyo, isaga dadka iyagaa wax la weydiiyaa ma ogiye. rabbi subxaanahu wa tacaala cidna waxba lama abuurin, cidna uunkiisa lama leh. isaga ayaa habeenada iyo bilaha, maalmaha, insaanka iyo jinka iyo khalqiga oo dhanba isaga ayaa abuuray. isagaana khalqigiisa kala fadilay. isaga ayaa habeenadiisa kala fadilay. isaga ayaa amaakinta iyo meelaha isaga ayaa kala fadilay rabbi subxaanahu wa tacaala. warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar maa kaana lahum lkhiyara. rabbi subxaanahu wa tacaala marka isaga ayaa wax abuuray, isaga ayaana wax doorta. nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, isagoo ka hadlaya habeenka qiimaha badan, man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbi. qofkii istaagaa oo salaatu lqiyaam, taraawiix iyo tahajud u istaagaa habeenkaasi isaga ah ee laylatulqadarka ilaahay waafajiyaa, dembigiisii hore oo dhan waa la dhaafay ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, man xurima khayrahaa faqad xurim. qofkii habeenkaa iyo bisha ramadaan guud ahaan khayrkeeda laga hoojiyo, waaya, loo diido, qofka isaga ah waa maxruum. waa qof aan qanacaad lahayn. waa qof ilaahay khayr uusan ugu talagelin. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkeeda nagama hoojiye. ayuha alaxibatu fi llah, waxaan rabaa inaan wax yar isdul taago. limaada sumiyat laylata alqadri? maxaa loogu magacaabay habeenkaasi laylat lqadri? ahlu cilmigu waxay sheegeen dhowr arrimood oo aan doonaya inaan idinla wadaago. marka koobaad, lianna allaha tabaaraka wa tacaala yuqadiru fiiha alumuura waalarزaaqa. waxaa laylatulqadri loogu bixiyey waa habeenkii wax qadaridda iyo jaangoynta, oo ilaahay baa umuuraha iyo arsaaqdaba qadara. oo waa sidee haddee? anuu caloosha hooyadii ku jiraaba arsaaqdeeda la qadaray, ee haddana waa la qadaray. xaggee u jeedaa? markaasna si duuduub ahoo wadar aha loo qadaray, markanna waa qadaridii sanad walba ahayd. oo malaa'igta ayaa tastalimu saxaa'ifa alaqdaari caaman kaamilan. sanad dhan
wixii aad calfan lahayd iyo meeshaad mari lahayd iyo wixii aad la kulmi lahayd ayaa la qorshaynayaa dabadeedna malaa'igta ayaa loo dhiibayaa waana meesha uu alla leeyahay jalla fi culaah innaa anzalnaahu fi laylatin mubaarakatin innaa kunnaa mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim meesha uu ilaahay leeyahay weeye habeenka isaga ah waa habeenka umuuraha oo dhan la kala xugmiyo la kala qadaro oo malaa'igtu riboodyada loo kala dhiibo weeye taasi waa midda labaad ee ahlu cilmigu ay sheegeen sababta laylatul qadri loogu magacaabay waxaa weeye lianna allaha tabaaraka wa tacaala anzala fiiha alqur'aan habeenkaasi waa habeenka qur'aanka la soo dejiyey innaa anzalnaahu fi laylati alqadri habeenkii marka sharafta iyo qadarka u saaxiibka ahaa weeye qur'aankuna wahuwa acdamu maa yakuunu min alkutubi qadra waa kutubtii ilaahay uu soo dejiyey kan ugu qiimaha badan weeye walaa shaka inay arrinkaasna inuu sidaa yahay marka maadaama habeenkii qur-aanka la soo dejiyey uu yahay waa habeenkii sharafta waa habeenkii qadarka iyo sharafta u saaxiibka ahaabaa laga wadaa saasaa laylatul qadri loogu bixiyey waxay kaloo ahlu cilmigu ay sheegeen lianna alinsaana yucadimu qadrahu fiiha ida axyaaha liyanaala sacaadata fi daarayn habeenkaasi qiimaha badan ee ilaahay uu yidhi laylatul qadri khayru min alfi shahrin dadku way isu soo baxayaan insaankuna wuu weynaynayaa qofka ilaahay khayr la damcay habeenkaasi wuu weynaynayaa sida uu nabigu samayn jiray sala allahu calayhi wasalam tobanka dambe ramadaanka haddii uu soo galo axyaa laylah habeenkiisa wuu noolayn jiray wa ayqada ahlah ehelkiisana wuu toosin jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam aad buu habeenkaasi ugu dadaali jiray marka maadaama qofkii ilaahay khayr la damco uu habeenkaasi weyneeyo habeenkaasi uu ku nooleeyo cibaado rabbi iyo tadaruc iyo qiyaam iyo duco iyo qur-aan akhris iyo sadaqo iyo qaraabo xiriirin iyo dacwo iyo tafakur iyo ta'amul uu ku weyneeyo habeenkaasi waa habeenkii marka la qadarinayay ee la weyneynayay wey lianna alinsaana yucadimu qadrahu fiiha saasaa laylatul qadri loogu bixiyey sababta afraad ee ahlu cilmigu ay sheegeen waxaa weeye lianna alarda tadiiqu min kathrati almalaa'ika dhulka ayaa ciriiri noqda malaa'igta soo degaysa habeenkaa tiro badnidooda daraaddeed oo waxay markaa u dhigantaa waman qudira calayhi risquh oo kale qofkii risqiga lagu ciriiriyo marka malaa'igta ayaa aad u soo degaysa marka dhulkiibaa ciriiri noqonaya dhulkii ayaa ciriiri noqonaya saa daraaddeed baa laylatul qadri loo yirina ahlu cilmigu way sheegeen almuhim habeenkaasi waa habeen aad u weyn waa habeen aad u qiimo badan waa habeen xaqiiqadii waxaa weeye man xurima khayrahaa faqad xurim khayrkiisa qofkii laga hoojiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khayr u diiday weeye qofka noocaas oo kale ilaahay naguma dara dadkaase caaisha radia allahu canha wa ardaaha nabiga waxay weydiisay nabi allow haddiiba habeenkaa ilaahay ila kulmiyo maxaan dhahaa ayay tidhi wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam waxaad dhahdaa allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii ilaahayow alcafuwu baad tahay dadka waad cafisaa dembigii baad ka tirtirtaa dibna waxba uma raacatid waad ka indhalaabataa xitaa dembiga raadkiisii baad tirtaa macnaha cafwiga waa saas tuxibu alcafwa inaad wax cafisana waad jeceshahay sifaadkaada ayay ka mid tahay ee facfu cannii ilaahu icafi caaisha haddii lagu yidhi sidaa dheh aniga iyo adiga maxaan odhanaynaa marka oo dembigeennii uu dhabarkeenna cusleeyey oo saban aakhir nool oo waajibaad badan ka tagnay
وإلهي سبحانه وتعالى حال كأنه أوجيهي وحلنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا عفي إلهي ومد إسلامك أردن عفوي وحنكسو ختم يا أيها الإخوة إن لغو عفية مدونيسا أدوغو آدانها عفي أدوغو آدانها دنبغا إيكاقلين أداف قلبغنا النظيفي قلبي وين يطول البالنا كقابل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن إذنك الذين دم بدافسوا دوني ميسان ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي رب ليه سبحانه وتعالى فاصفح الصفح الجميل أي رب ليه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عفو قاضو oo dadka juhalada ah ee wax magaratada ah ama ku gardaraysanayana isaga jeeso oo ha ka ficil qaadanin iska cafi haddaad adigu dadka cafiso ilaahayna waa ku cafinaya subxaanahu wa tacaala allahu akramu mink ilaahay baa kaa maaratay karaamo iyo wanaag badan sidaad adiguba dadka u karaamaysay si la mid ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ka wanaagsan ayuu kuu karaamaynayaa aljazaau من جنس العمل أيها الأحبة في الله سيدا إي موقتا هبينك ليلة القدر حلقة صوص عطاء كوبية تبنادنا وينوغها للدونا بإذن الله تبارك وتعالى انت أنك قاعد دونا حلقة إن كوبية تبناد بإذن الله عز وجل وحنا قدت بحفظ الله ورعايته استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل